tusaalaan ku siinaya shir baa beri ka dhacay Djibouti waxa wada galay farmaajo madaxweyne Soomaaliya ka ahaa Abiy Ismaaciil Umar Geele shirkaas markii uu dhacay Muuse Biixi baa la soo marti qaaday waxa la rabay in lagaga hadlo waxa la yiraahdo regional economic integration isdhexgalka dhaqan dhaqaale ee gobolka Bariga Afrika waxay rabeen markaa inay hoos dhigaan madaxweyne Somaliland inuu ku saxeexo isagoo maamul goboleeda wuu diiday waxaanu ka jeediyay halka khudbad weyn waxa jooga wakiilka Mareykanka u fadhiya Afrika iyo wakiilka Ingiriiska u fadhiya iyo ka Faransiiska u fadhiya madaxweynuhu markii khudbadii dheereed jeediyay idaacada Mareykan oo aan dhageystay warbixino Mareykan ka soo baxay waxay sheegeen in ayna reer Mareykan ogeynba siyaasad ahaan muranka Hargeysa iyo Muqdisho saa u awood badan yahay way u garnaqsay madaxweynuhu markii uu soo noqday wuxuu ka arkay in Abiy oo madaxweyne hogaamiyaha Itoobiya ahaa ra'iisul wasaaraha inuu jujuubayo Somaliland wuxuu safar u diray wadanka Masar safarka waxa hogaaminayay wasiir ku xigeenka Somaliland waqtigaas oo loo oran jiray Liibaan Gaaxnuug ayaa soo saxna safarkaas waxa lagu soo sheegay dalka Masaarida kaaliya safaaradiina maktabadiina dhista maktabka halkan markii la bilaabay arrintaas dawladda Itoobiya ku adkaatay in Masar ay soo degto wajaale iyo berbera waxaana la rumaysan yahay dilkii fanaankii kacdoonka Itoobiya ka bilaabmay Oromadaha in sirdoonka Masar ka dambeeyay hogaamiyaha Itoobiya oo la soo hadlay Somaliland waxaan uu sheegay inay heshiin karaan laakiin Masar dib loo dhigo arrintii waa laga wada hadlay waa arrinta dhali doonta MOU-ga kamana bixi doonto Djibouti Itoobiya MOU-ga way bedelka la haystaa waa Masar inagu markaa madaxweyne Biixi wuxuu sameeyay siyaasad aad u qaangaalo ah inuu ku sameeyo gorgortan qodobkaasi markii uu dhacay siyaasadda Bariga Afrika xoog bay isku bedeshay waxa kale jiray in Eritrea laba wasiir soo dirtay iyadoo diidan MOU-ga laba wasiirka arrimaha dibadda laba goor MOU-ga dib loo dhigo iyadoo ogol ama laga noqdoba waxa jiray in Shiinuhu uu soo diro 11 shakhsi oo rag ugu dhow Khayjibina oo madaxweyne Biixi uu sheegay inuu 330 mashruuc oo 300 milyan qaato madaxweyne Biixi bariga wuxuu kula garnaqsaday in aqoonsi kaliya ka rabaan wax kale aan karin arinta MOU-ga imaaraadka iyo isku xidhkeenaasi ma aha siyaasad sahlan waa siyaasad soo leexin karta